bismillah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd. waxaan hambaliyo salaan iyo bogaadin ku aadan munaasabadda 12 abriil hawada u marinaya sareeyaasha, saraakiisha, saraakiil xigeenada, alifleyda, dableyda iyo jadiidka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, xaasaskooda iyo caruurtooda. sanad guurada 62 ee asaasidda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku beegan maanta oo ay taariikhdu tahay 12 abriil 2022 waa maalin weyn oo ay tahay inaan dhammaanteen u wada dabaaldegno, farxadana aan la qaybsano ciidamadeena sharafta leh. waxaan si gaar ah salaan ugu dirayaa halyeeyada wiilasha iyo gabdhaha leh ee furimaha hore ee ku hor fadhiya cadowga argagixisada ah, habeen iyo maalinna u shubayo dhiigooda si ay u difaacaan qarannimada Soomaaliyeed. ciidamada qalabka sida guud ahaan waa hay'ado dastuuri ah oo aan dhicin, waqti ka dhammaan, oo haysta mandate furan inta uu jiro qaran Soomaaliyeed. arrintaas ayaa ka dhigan in ciidamadu yihiin xudinta dowladnimada iyo aasaaska qarannimadeena. sidaa daraaddeed waxaa laga doonayaa dhammaan qaybaha ciidamada qalabka sida iyo taliyaashoodu inaysan yeelan sumad iyo ujeedooyin aan ahayn kuwa qaranka ee dastuuriga ah, kana feejignaadaan ku milanka siyaasadaha isdiidan ee waqtiga la dhammaan doono. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa waqti dheer hor yaalo waajib qaran oo weyn oo ah in dalka laga ciribtiro argagixisada. waxaana rajaynaynaa in mar walba maanka lagu hayo in arrintaas ay tahay waajibka ugu weyn ee na sugayo. waxaa halkan si gaara uga mahadcelinayaa dowladaha aan saaxiibada nahay ee sida walaaltinimada ah noogula shaqeeyo tayeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaana leeyahay mahadsanidin. ugu dambeyn waxaan u rajaynayaa dhammaan xubnaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in sanadkan sanadkiisa uu Alle subxaanahu wa tacaala ku gaarsiiyo nabad, guul iyo horumar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.